بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Jamaal Axmed kusoo dhawaada raadiyo maqalo alaabadii ka yimaada magaalada Oslo dalka Norway daawadayaal maanta waxaad idin hayaa barqayb yar oo ka hadlaysa faa'iidooyinka badan ee uu leeyahay social media waa inta badan waxa laga hadlaa waxyaabaha negatifka laakiin maadaama aynu joogno waqtigii casriyadda marka bal waxaan jeclay dhowr qodob oo xasuusina magarasa inaan soo qaato ah faa'iidada uu leeyahay marka waxyaaba loo yaqaano social media noocu doonaba ha noqdee waxa maanta dhacday social media waxa ugu muhiimsan maanta laga leeyahay in si dhib yar loo wada xiriiro oo si dhib yar magaraysa qofka bini'aadamka meeshu doonaba ha jooga inta badan inuu qofku markaa dadkiisa la xiriiri karo inuu markaa war heli karo waa waxyaabaha magaraysa teknolojiyadda dhinaca magaraysa ay keentay hadda waxa ugu muhiimsan waxa weeye in dadkii si dhib yar aad u fudud ay wada xiriiraan markaasi oo si yar aan waqti badan la gelin way dadkii inta muddo badan waxa qof kasta dadka inta badan waxay xasuustaan in bariga hore qofku inuu telefoon helo inuu cid la hadlo inay aad u adkaan jirtay laakiin maanta waxa weeye si dhib yar buu qofkii magaraysa wuxuu helayaa magaraysa warbixinta uu isagu rabo ciduu doono la xiriiri karaa marka waxay aad iyo aad u fududaysay magaraysa teknolojiyaddu waxa weeye in si dhib yar markaa qofkii bini'aadanka marka isagu helo magaraysa uu dad ula xiriiri kara markaasi adoo guriga joogaad isticmaali kartaa social media taasina markaa waxay sahlaysaa dad la xiriidho online baad geli kartaa qof adduunka dhinaca kale jooga markaa laakiin haysta internet waa wada xiriiri kartaan marka waxyaabaha ugu muhiimsan magaraysa laga faa'iiday magaraysa dhinaca teknolojiyadda cusub waxa weeye in dadkii si yaroo dhib yaroo fudud oo aan waqti badan galaynin in si yaroo dhib yar markaa loo wada xiriiri karo waxaa kaloo markaa social media inta badan fuday in dadkii magaraysa familigii ama asxaabtii ay si dhib yar wada xiriiri karaan oo maanta adigu halkaa jooga wax laga yaabaa in waddanka si dhib yar WhatsApp baa isticmaali kartaa Facebook baa isticmaali kartaa marka inta badan waxa laga yaabaa inay suuragal tahay magaalooyinka marka inuu qofkii si dhib yar markaa qaraabadiisa ama asxaabtiisi ama marka cidda uu doonayo inuu si dhib yar markaa fudud ula xiriiri karo markaasi ama marka uu information u siin karo ama uu la share gareyn karo markaa magaranaysaa wixii markaa ay doonayaan marka waxay doonayaan markaa iyagu labada qof waxay ka dhexeeya ku xidhan inta badan marka laakiin muhiimadda waxa weeye in si yaroo fudud loo wada xiriiri karo markaasi oo ay fududayn qofkii saaxiibka magaraysa si yaroo fudud marka aad u hesho waxaa kaloo jirta magaranaysa iyada laftigeeda in dadka familiga ama asxaabtu si dhib yar sawir iskugu diraan email iskugu diraan akhbaar isku idaarsadaan marka taa lafteedu waxyaabaha teknolojiyaddu ay soo kordhisay faa'iidada laga helay ayay ka mid tahay waxaa kaloo inta badan la arkaa waddamada qaarkood dad kala lumay asxaab bay noqon karaan qaraab bay noqon kartaan family bay noqon kartaa waalid buu noqon karaa carruur bay noqon kartaa in uu markaa la soo geliyo social media inuu markaa ay dhib yaraanaysa markaa inuu qofkii dhib yar in loo helo markaasi halkii markii hore magaraysa qofka la-aan dee in la hela ay aad u adkeyd laakiin maanta intii television loo yeedho ama qofka sawirkiisa la qaatay in Facebook la soo dhigo ama waxyaaba kale social media Twitterka Snapchatka Instagramka waxay doontaa ha noqoto in qofkii la soo geliyo markaasi dhib yar markaa qofkii magaraysa loo helo oo dadkii beriga hore isla waayi jiray ama israadin jiray ama inay ishelaan aad u adkeyd maanta waxa aad moodaa inay tahay in aad si dhib yar dadku markaa isku heli karaan marka qof hadduu kaalo hadduu lumo way dhib yartaa waqtigan xadarka in markaa qofkii inuu nool yahay inuu dhintay markaa in akhbaar laga helo waxaa kaloo baryan dambe arkaysaa dad badan oo iska masaakiina oo aan waxba badan haysan oo si unu soo gala markaa social mediaha markii dambena noqday dad tijaara milyaneera dadka heesaa ka mid a dadka talentiga ilaahay siiba ka mid a ee la'aan meel ay kusoo bandhigaan magaraysa hibada iyagu ay leeyihiin marka waxa laga yaabaa qofkii isagoo markaa ama ay ka jajabantay ama waxba haysanin in markaa si dhib yar markaa uu soo galo social media marka damba noqdo magaraysa qof caana oo adduunka laga jecel yahay ama uu noqdo qof markaa milyaneer oo lacag badan sameeya marka waxa la odhan karaa dhinaca laftigeeda social media wuxuu keenay fursad ah inay dad badan marka aan haysan fursadani ay hadda ka faa'iidaystaan way birgar waxa weynay telefishinada kale ama raadiyoyada kale waxay gacanta ugu jireen dadka lacagta leh ama dowladaha laakiin maanta qof kasta oo markaa heli kara internet ama awooda markaa way dhib yaraysa marka inuu hibadiisa markaa soo bandhigo marka dhinaca laftiisa waxaa la odhan karaa faa'iido weyn ayuu markaa keenay social media qaybta ugu muhiimsan ee islaahay social media iyada laftigeeda wax badan buu ka tirax way dhinaca business iyo kale ama ganacsiga si dhib yar baa qofkii maadaama isuu maanta gurigiisa jooga ayuu maanta waxna u iibin karaa waxna u soo iibsan karaa ama isagoo gurigiisa jooga ayuu waxna xayeysiin karaa uu adduunka meesha u dambaysa qof jooga waxa uu isoo markaa uu rabo halkaa ka ogaan karaa waxay noqotay marka social media suuq weyn wax lagu kala ganacsado oo magaranaysa maanta wax lagu kala iibsado marka haddaad doonayso ood alaab haysa marka waxa laga yaabaa inaad suuqa weyn horta ka qayb qaadatid dibadna marka alaabtaadii waxay halkaad gelisid kadibna markaa meesha waxa laga yaabaa in waxaagii laga jeclaado ama dad badan marka ay adkayd beriga hore in waxaasi uu gaadho maanta waa uu gaadho markaasi way beriga hore waxa loogaa qof xitaa hadduu doonin inuu xayeysi sameeyo haddii uu doonin inuu baafin sameeyo inuu idaacadaha tago ama telefishinada isticmaalo lacag badan baa laga qaadi jiro qaali bay aad u ahayd laakiin maanta aad bay u fududahay taasi in la sameeyo xitaa meelaha lacagta lagu qaato laftigeeda lacag badan kuma baxdee waxa laga yaabaa in wax yaroo aad fudud wax yaroo aad marka qofka awoodi kara laga qaado marka waxaan odhan karnaa magaranaysaa
ganacsiga aad buu social media u caawiyey qofkii xitaa wuxuu heli karaa magarasa customer cusub buu heli karayaa waxa laga yaabaa suuqiisa inuu isla markiiba ballaadho isuu markaa ka faa'iidaysan dhinaca social media waayo inta badan maanta waxaa arkaysaa dadka ganacsatadu waxay caabooda saaraan waxa weeye social media inay isticmaalaan si waxooda markaa ay u iibiyaan ama ay u gaadhsiiyaan meelo markaa fogfog aada u fog marka taasi inta badan waxay keentaa in ay timaado in laga faa'iidaysto markaas xitaa qofka waxa laga yaabaa isagoo gurigiisa jooga inuu ganacsigiisu noqon karo ganacsi caalami oo international waxaa laga yaabaa inuu qofkaasi gurigiisa ka bixin ama waxa laga yaabaa inuu magaalada degaan meel kale aanu tegin laakiin ganacsigiisu uu gaari karo markaas oo ganacsi caalamiya kaasina maxaa keenaya social media keenaya waayo maanta aduu guriga joogaa waxa laga yaabaa inaad wax badan dalban kartid markaas oo gurigaaga lagu keeni karo waad dalbanaysa gurigaadoon ka bixin alaabta walisa guriga lagu keenaya haddii marka ganacsadeen waxa weye qalabkii waa laga soo dalbanaya alaabta waad qaadaysaa qofkiisa gurigiisa joogaad u geenaysa adigana lacagta accountigaaga kugu soo dhacaysa marka adigoon magaraysaa dhib saa u badan ba marin marka waxyaabaha inta badan uu ganacsigu soo kordhay baa kamid ah in dadkii loo sameeyo service aad fudud oo servicekii qofka magaraysa intuu suuqa tago ama uu alaab doonto ama uu waqti badan ku isticmaalo inuu gurigiisa joogo magaraysa wax walba uu dalban karo marka wixii uu gurigiisa ugu soo dhici karo marka dhinaca businesska kale waxaa la odhan karaa social media wuxuu ka sameeyey horumar aad iyo aad u badan ama horumar laxaad leh oo magaraysa dhinaca isgaadhsiinta oo waxyaaba badan waxaa arkaysaa business online xayeysiada arkaysaa ka socda internetka yacni aad iyo aad baa la odhan karaa internetku dhinaca ganacsiga xooli wuxuu ka qayb qaatay qayb aad iyo aad u ballaaran oo shirkadaha maanta caanka ah shirkad walba waxay leedahay magaraysaa website ay ku xayeysiisato ama shirkadaha caalamiga magaraysaa dhinaca horumar ka sameeya dhinaca magaraysaa onlineka ama internetka ay waxay siiyaan qandaraasyo si markaa ganacsigoodaasi marka adduunka u gaadho marka aad iyo aad baan isleeyahay ganacsiga social media wax badan buu ka taray waxaa kaloo iyada laftigeeda dee qofka uu samayn karaa campaign dhinaca magaraysaa hadduu doona markaan wax iibiyo kale marka si dhib yar badan markaa qalabkaaga campaign u samayn kartaa haddii markaa waxaagu aad jebinayso haddii aad wax cusub soo kordhisay haddii aad macaamiil cusub soo heshay haddii aad dad qandaraas la soo qaadatay haddii aad dad badanoo customer ay ku yimaadeen haddii adiga laftigaaga waa tahay qof wax iibsanood wax fiican meel ka soo heshay si dhib yar badan asxaabta ula qaybsanayso waxaa leedahay maanta dukaankaasaan tegey waxaasan kasoo iibsaday waxaasna saas uu jabna ama waxaas uu fiican yahay daba dad badan waxaa laga yaabaa in markaa ayaguna meeshii ay raacaan ay ka faa'iidaystaan markaa fursaddii taallay meesha marka had iyo jeerba waxaan isleenahay يعني إنه حرير دي سما كرانسا دينا عبايع مشاركة بس آدي بي مهم وقتها مكرانسا دينا مكرانسا بيع مشاركة مركا كل وحباب بدن مركا وليه مكرانسا فايدة بدن الإنترنت مركا وقت كان حاضر كان لاجو مركا لكن وحا آدي مهمة ما دام إنه هاي ضد ما أنت أسر جلسة أما ضد كأسر جلسة إنه هلا مكران سوشيال ميديا إنه دينا عباس في وقفة يديستو أو الإنترنت كان مكرانسا ama social media ha laga faa'iideysan laga taajiriyo wax laga helayo inuu si fiican uga faa'iideysto isagoo markaa cid caayinin cid aflagaadaynin aan ka fikirayn oo kaliya lacag samee laakiin doonaya markaas inuu lacagna sameeyo ummadana wax cusub soo kordhiyo oo markaas u faa'iideeyo kulle waa badan waxba markaas internetka laga faa'iido ama laga helo waqtigan xadirka marka barnaamijkeena arrimaha bulshada ee ku saabsan maanta faa'iido uu leeyahay markaas online ama internetka ama social media intaan kusoo gabaynaya magacaygu waa Jamaal Axmed dhinaca farsamada waxay jooga saaxiibkay Mahad Cabdulla Tabashash wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh